waxaan hadda taaganahay meeshii ay ka dhacday 14 bishan Oktoobar masiibadii aadka u weynayd ee qaran ee ay ku qurbaxeen oo ay ku shahiideen in ka badan 280 qof oo Soomaaliyeed oo rayid ah kuwaas oo ku sugnaa halkan waxay ahayd wado ay nolol ka jirto waxa ay la ciirciireysay nolol waxa halkan ka jiray oo ka soconayay businessyo kala duwan halkan waxa buuxay gawaari kala duwan oo meelo kala duwan ka yimid kuwaas oo dadku ay raacayeen halkan waxa marayay BL wadadan oo dhan aad ayay u buux dhaaftay 14 bishan xilligii salaada casirka lagu jiray ayaa uu qof naftiisa haliga ah oo gaari aad u weyn oo xamuul oo waxyaabaha qarxa ay ku rakiban yihiin oo halkan yimid gaarigu waxa uu ku qarxay meesha tan aad arki kartaan halkaas ayuu gaarigu ku qarxay meeshan waxay isku bedeshay meel aad iyo aad u burbursan oo qofkii arkaa uu dareemi karo laamigii oo dhan wuxuu noqday mid burburay oo baaba'ay halkan dagaaladiisii ayaad ka arki kartaan oo si weyn ayaa burbur ugu gaaray qaybtan oo dhan way go'day meeshan waxa ka dhacay wax lagu tilmaami karo dhul gariir haddii aan tilmaan ka bixino Zobe sartan iyada ah hoos waxa ku yaalay waxay ahayd dhismooyin korna waxay ahaayeen xafiisyo iyo maxaan ku yiraahdaa hay'ado kala duwan ayaa deganaa burburka ka muuqanaya waad arki kartaan burbur aad u xoogan ayaa gaaray burburkaasna wuxuu sababay iyo qarxi ku dhacayba inay dad aad u fara badan oo halkan ku sugnaa oo ku noolaa iyo kuwa ku xafiisyo ku lahaa iyo kuwa ka tukaamaysanayay iyo kuwa ganacsiyo kala duwan ku lahaa iyo kuwa gaadiid sugayay halkan naftirkeeda gaadiida laga raaci jiray hortooda inay halkaas ku naf waayaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala tiisu ay u timaado oo ay halkaas ku shahiidaan oo ay ku qurbaxaan sidaas la mid waxa loo sheegay in mid ka mid ah carwooyinka ku yaalay dhismaha hoose ee Zobe ay ku naf weyday oo ay ku shahiiday Allah u raxmadee Allahna aqbalay mid ka mid ah gabadhii jaamacadda ka dhamaysay ee isu diyaarinaysay maalintii Axadda in ay xafladeeda qalin jabinta qabsato kadib markii ay jaamacadda Banaadir 6 sano cilmiga caafimaadka ka dhiganaysay waxay ahayd meel aad zaxmad u ah aadna ay u adag tahay in wixii cirka loo tuuro ay dhulka iyadoo aan dad ku dhicin ay soo laabato wixii halkan yeelay oo dhan qaraxan uu sii galaaftay waa uu sii maray dad aad u fara badan oo halkan ku laayay dhankan oo ay hooyooyin business yar ku lahaayeen miisas yar oo ay ku iibiyaan loos iyo maxaan ku yiraahdaa shaah iyo cabitaano yar dhankaas kale casayaal ayaa joogay waxa ku sii xigay haween iyaguna shaah xagga ku iibin jiray oo iyagana dadka doonaya inay gawaarida raacaan iyo kuwa ka dagaya iyo kuwa danaha ka soo yeesha businessyadan iyo xataa isbitaallo iyo goobo caafimaad oo dhinacaas kale ku yaalay ay dadka ku sugi jireen wixii halkan joogay oo dhan dhibaato ayaa gaartay halkan dhan kasta oo aad eegto halkan waxa ka muuqanaya burburka waxa ka muuqanaya sida qaraxani uu ahaa ama falkan argagixiso ee meeshan ka dhacay uu ahaa mid aad u xanuun badan aad u naxariis daran aad u devastating oo aad burburkiisa iyo khasaaraha uu geysanaya uu badan yahay halkan waxa joogay haween Soomaaliyeed halkan ayay ku gadi jireen shidaal halkanna waxa laga raaci jiray gaadiidka u socda dhinaca Afgooye iyo gobolada Shabeellooyinka ama Shabeellada hoose halkan ayaa laga raaci jiray meeshan bacda kale waxa lagu gadi jiray shidaal ay haween Soomaaliyeed hooyooyin Soomaaliyeed ay halkan ku iibiyaan dhinaca dhabarkoodana waxa ahaa tukaaman iyo goobo ganacsi iyo business yar iyo carwooyin iyo goobo electronicska iyo kombiyuutarada iyo qalabkaas teknolojiyada lagu gado dhinacaas kale waxa ku taalay maqaayad
maqaayad ay dad aad u fara badani fadhiistaan oo ay ka cunteeyaan dhinacaas kalena waxaa ku yaallay sariflayaashii halkaas ku ganacsanayey iyo hooyooyinkii shidaalka gadayey iyo dadkii bi'alka saarnaa ee u safrayey iyo kuwii ka degayey iyo kuwii goobta ku nasanayay iyo dadkii lugaynayey iyo kuwii carwooyinka wax ka iibsanaya dhammaantoodba waxa gaaray khasaare aad u weyn waxa gaaray dhaawacyo waxa gaaray dhimasho in badanoo ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa oofsaday halkaas ayay ku naf waayeen ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u naxariisto waxaana halkan ka dhacay wax aad u weyn halkan aan hadda taagannahay waxa aad arkaysaan birahani waxay ahaayeen shubka baalayaasha korontada ee mid ka mida shirkadaha korontada bixiya ay halkan ka taageen waad arkaysaan sida ay isugu beddeshay burbur sidan ayaa qaraxu u baabi'iyey dhagxaantii ku dhex jirtay iyo shubkii ku dhex jiray oo dhan way baxeen dad ayayna siya galaafteen oo ay naftooda sabab u noqdeen in halkan ku burburaan halkan waxaa fadhiisan jiray haween hooyooyin Soomaaliyeed ayaa halkan joogay halkan ayay qaarkood shidaal ku iibin jireen halkan ayay qaarkood qaad ku iibin jireen halkan ayay qaarkood ku lahaayeen cooshado yaryar oo ay ka maareeyaan carruurtooda bal ila qiyaas halkee haddii dhagxaantii halkan ka taagneed iyo shubkii halkan ka taagnaa uu sidan isku beddelay ma ila qiyaasi kartaa hooyadii halkan fadhisay waxa gaaray halkani waxay ahayd masjid halkani waxay ahayd goob cibaado halkani waxay ahayd meel ilaahay lagu caabudo markaas uu shilku dhacayay qaraxa lala beegsanayayna dad ayaa ku tukanayay salaad ayaa ka socotay markii qaraxan isaga ah ee aadka u xanuunka badani uu dhacayay dadkii halkan ku tukanayay waxay alla la kulmeen iyaga oo salaad ku jira iyagoo tukanaya iyagoo cibaadaysanaya ayaa lagu duldumiyey meeshii ay ku tukanayeen iyo cibaadadii ilaahay ay u taagnaayeen ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu ku daro liiska dadka shuhadada ah ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu geeyo jannadiisa firdaws alaclaa dhankan haddaan u soconno weli waxaan arki karnaa hoteelkii halkani waxaa laga geli jiray way adag tahay in tilmaan laga bixiyo aad ayay u adag tahay in tilmaan laga bixiyo aad ayayna u adag tahay sidaasi la mida in la kala aqoonsado qolalku sidii ay iskugu xigeen hase yeeshee aaggan waxaa la hubaa waxaa ku yaallay hoteelkii safari burbur aad u xooggan ayaa gaaray waad arkaysiin waxa ku dhacay sidaasi la mida waxaa halkan isaguna ku yaallay aaggan inkastoo aanan ka aqoonsan karin mitiradii uu ku fadhiyey iyo meeshii uu ahaa hoteelkii bangigii IBS oo isagana farac ka mida uu halkan ku yaallay isagana wuxuu isku beddelay burbur aad u weyn dhankaas oo aad u jeediin halkani dadku aad uma arki jirin markii hore laakiin waad arkaysaan burburku sida uu saameeyey qolalkii ayuu dadka ugu dhex galay guryihii ayaa burburay waa bisha cas meeshii la dhihi jiray dhinacan soke ila qiyaas hooyooyinkii halkan shidaalka ku iibinayey iyo casayayaashii halkan joogay iyo dadkii lugaynayey iyo gaadiidkii biyalka ahaa ee dhankan u socday ama maaragtay businessyadii yaryaraa ee halkan ku yaallay oo dhan waxay isku beddeleen sidan gaadiidkaas aad arkaysiin ee xagga ka muuqanaya ee gadaal loo riixay si laa iraadi ah ayuu meesha u tegey waxaa lagu qasbanaaday dadkii halkaas gaadiidkaas saarnaay oo dhan way ku gubteen way ku baaba'een wayna ku basbeeleen
marka waxa halkan ka dhacay waxa tilmaan laga bixin karo ma aha waa waxa aad u xanuun badan waxa halkan lagu gooyay nolosha dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed waxa halkan ku dhintay oo ku shahiiday dad mustaqbalka Soomaaliya maaragtay macno u sameynayay dad dalkani uu ku dhaadanayay dad danyar ah hooyooyin caruur u xamaalayay halkan ayaa noloshooda lagu aasay halkan ayay dhiigooda iyo dhacaankoodu isdhex galeen waxay isdhex galeen shidaal halkan lagu iibinayay iyo maaragtay gawaaridii iyo wax kasta oo qaraxi alaabta qarxay iyo dhagxaantii halkan iyo laamigi ayaa dhammaantood halkan isdhex galay halkan tilmaan way ka dhan tahay aad iyo aad ayuu qofka dareenkiisu isku bedelayaa markuu halkan yimaado waxa halkan ka dhacay waxay ahaayeen wax aad murugo u ah wax aad u xanuun badan waxay adag tahay in tilmaan laga bixiyo halkan ayaa lagu gumaaday mustaqbalkii waddankan in badan oo ka mid ah hooyooyin caruur dhalinyaro